Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bishaaraysta walaalayaal, waxaad ku bishaaraysteen khayr. Khayrkaas oo hadda aan idiin soo wado. Khayrkaas intaan idiin sheegin ka hor, horta ila dhegeysta aayadan. Inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ku bishaaraysta walaalayaal, khayr ku bishaaraysta. Khayrkaas oo ah inaad marka hore ku salisid rasuulka sallallahu alayhi wasallam. maxaa yeelay rasuulka lagu saliyo sallallahu alayhi wasallam, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nagu tarqiiminayo, aana jeclaysiinayo. maxaa yeelay wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala, ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyi. ilaahay iyo malaa'igtiisa waxay ku salinayaan rasuulka dushiisi sallallahu alayhi wasallam. yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii ilaahay rasuulkiisa rumeeyayo, salluu ku saliya calayhi, ilaahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dushiisa ku saliya, wasallimuu tasliima. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu tarqiiminayaa inaan ku salino rasuulka sallallahu alayhi wasallam. rasuulka markaad ku salisid maxaad helaysaa? marka hore maxaad helaysaa? waxaad helaysaa marka hore ilaahay subxaanahu watacaala raalli ahaanshihiisa waad helaysaa. maxaa yeelay ilaahay isagaa dhahayo, ilaahay iyo malaa'igtiisa waxay ku salinayaan rasuulka. idinka mu'miniina dadkiin ku saliya rasuulka sallallahu alayhi wasallam. marka wuuna amrayaa ilaahay subxaanahu watacaala. amarkiin wuxuu ku tusinayaa waajib. al-amru yadullu cala alwujuub. amarka sidiisa wuxuu ku tusinayaa waajib inuu yahay shayga. markaad ku salisid maxaad helaysaa? marka dhegeyso xadiidkan. waxaa warinaya cabdullaahi ibni cumar ibni caas ayaa warinayo. wuxuu yidhi, waxaan ka maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo dhahayo, qofkii igu saliya aniga dusheydii salaad hal sali, qofkii ku saliya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku salinayaa 10 jeer buu ilaahay ku salinayaa. ila dhegeysa xadiidka. ibnu cumar radiallahu canhuma asi aabihiisa waa laba saxaabi, annahu samica rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yaquul, man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha 10. xadiidkaasina waxaa wariyey muslim ayaa wariyey. qofkii igu saliya hal mar dusheedii ilaahay subxaanahu watacaala asigana wuxuu ku salinayaa 10 jeer buu ilaahay subxaanahu watacaala kugu salinayaa. hal maraad ku salisay rasuulka, adigana 10 jeer ayaa ilaahay subxaanahu watacaala adigana kugu salinayo. darajadaas ayaad ku helaysaa. maalinta qiyaamana rasuulka sallallahu alayhi wasallam maciisi ayaad noqonaysaa. hadaad badisid aad jeclaatid rasuulka sallallahu alayhi wasallam. maxaa yeelay rasuulka isagaa noo sheegay sallallahu alayhi wasallam, almar-u maca man axabba ayuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam. maxaa yeelay asxaabta markay ay rasuulka si fiican u jeclaadeen baa waxay yidhahdeen, rasuul allow adiga waa ku jecelnahay anaga. maalinta qiyaamana adiga darajo sare ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku geynayaa, annagana kuma arkeyno. markaas wuxuu yidhi rasuulka sallallahu alayhi wasallam, almar-u maca man axabba. qofkaad jeceshahay ayaad maalinta qiyaamo maciisa ayaad noqonaysaa. qof alla qofkaad jeceshahay maalinta qiyaamo waa lagula soo saarayaa. haddaad jeclaatid rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamo maciisa ayaad noqonaysaa. baqiil ha noqonin. rasuulka wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, baqiil waxaa ah u sheegay haddii uusan igu salinin ninkaas ayaa baqiil ah, ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam.
ila dhegeenso xadiidkan warna cali radiallahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam albaqiilu dhegeyso xadiidkan albaqiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya baqiil waxaa ah nin la igu sheegay agtiisii magacii lagu sheegay falam yusalli calaya uusan igu salinin ninkaas ayaa baqiil ah ka waran subxaan allah marka rasuulka sala alayhi wasalam ku sali maqsadkeena ma ahan inaad soo qortid commentiga aad kusoo qortid maqsadka wuxuu yahay inaad ku salisid afkaaga iyo qalbiga aad ka jeclaatid rasuulka sala allahu alayhi wasalam kabacdina aad ku salisid rasuulkeyni sala allahu calayhi wasalam kabacdina aad faafisid oo walaalahaaga gaarsiisid muhiimadda waa intaasi ilaahayna ajar buu kugu siinayaa dadkaas walaalaha gaarsiinaysid adigana ilaahay subxaanahu watacaala ajarki oo walaalkaaga oo helana mid limid ah ayaad helaysaa maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi sala alayhi wasalam addaalu cala alkhayri ka faacilihi ninka khayrka dadka tusa wuxuu lamid yahay asigoo sameeyey oo kale marka ku dadaal inaad 1,000 qofo aad gaarsiisid kaligaagii saad ajarkoodii ajar la mid ah aad u heshid maasha allah 1,000 qofood haddaad gaarsiisid ajarkii ayaga helaan mid la mid ah haddaa heshid allahu akbar wax weynoo ilaahay ku siiyey dadaal walaal sii faafi insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu